الرحمن الرحيم. قدوميها قولها وكيلة مدن عبد الرزاق خليف أحمد وزير كمالية مدن الدكتور سعد علي الشيره duqa magaalada Hargeysa ahna gudoomiyaha ururka dawladda hoose mudan Cabdikariin Axmed Mooge xildhibaanada saraakiisha dawladda cilmi baarayaasha jaamacadaha ururada bulshada iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha rag iyo dumarba waad mahadsantihiin magacaygu waa Xasan Suude waxa aan ka tirsanahay golaha tala bixinta ee macahadkan aragtiyaha istiraatiijiyadaha iyo cilmi baarista ISIR waa marka koobaad ee sharaf gaar ah ayay noo tahay in aanu marti galino kulan aqooneedkii ugu horeeyay ee golayaasha cusub wakiilada iyo golayaasha deegaankuba ay ku dhageystaan falanqaynta mas'uuliyadaha ay gacanta shacabka ugu hayaan haddii aan dib idin xasuusiyo isir ahaan waxa aanu xoogga saarnaa saddex mowduuc oo muhiim aan ugu aragnay xasiloonideena wata koobaad in aanu ka tala bixino wada hadallada Muqdisho iyo Hargeysa dhex maraya wata labaad la socodka duruufaha geeskan Afrika waa marka saddexaad gorfaynta dawladnimada iyo dimuqraadiyadeynteena isla mowduucan saddexaad ee aynu caawa halkan u fadhino waa gorfaynta dawladnimadeena iyo dimuqraadiyadeynteeda si qodobkaas looga midho dhaliyo cilmi baarayaasha ISIR waxa ay sahminayeen filashooyinka dadweynaha xilligii doorashada waxa aanay barbar dhigeen ama barbardhig ku sameeyeen arrimaha farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan qabsoomi kara iyo sida mudnaanta loo kala siin karo waana sababtaas awgeed ta aynu u dooranay mowduucan aynu caawa halkan ku soo bandhigayno ee ah ballanqaadyadii iyo arrimaha mudnaanta leh promises and priorities maxamed cabdiraxmaan oo ah agaasimaha ISIR ayaa 10 ilaa 15 daqiiqo ku soo koobi doona nuxurka warbixinta waxa xigi doona panelka oo iyaguna falanqayn iyo faahfaahin ku lari doona isla inta uu panelku socdo waxa loo furi doonaa ka soo qaybgalayaashu inay faallo ama weydiin ku darsadaan ugu dambeyn duqa magaaladan Hargeysa oo sida aan sheegay hawlaha roobkani uu dhaliyay ee emergency ay ka mid yihiin hadda inooga maqan iyo kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq ayaa hordhac amaba guudmar inaga siin doona barnaamijyada ay mudnaanta siinayaan aweyskan caawa ee ah 90 daqiiqo qorsheenu ma aha inuu 8 bilowmo laakiin roobka ina xayray awadeed aynu 9kii bilaabayno 90 daqiiqo saacad yaba waxaynu hogaamin doona Kamal Marjaan oo la wareegi doona kadib soo bandhigista nuxurka warbixinta waxaan inoo rajaynayaa isfaham xoogan oo ku qotoma arrimaha mudnaanta u leh wadankan isla markaana ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha dawladdu soo dhaw Maxamed aad iyo aad baa mahadsantiin waad mahadsantahay Xasan Suudi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa la siiyay 15 daqiiqadood inaan taabto warbixintii dhawaan uu macahadku soo saaray oo dabcan luqadda af Soomaaliga iyo af Ingiriisiga ku qoran oo rajaynayna maadaama dadkan markaan soo marti qaadanay aan ku salaynay dadka aqoon-yahanka dadka wax qora dadka wax akhriya dhamaantiin aad aragteen ay waxaan isku day doonaa inaan si kooban runtii aan u taabto inta marka laga yimaado waxaan kaloo idin xasuusin doonaa madasheenu waa madal akademiga marka inta laga yimaado dhamaan waxaan ka wada warhaynaa 31 May 2021 inay Soomaaliland ku guuleysatay inay qabato doorashooyin muddo dheer sugaynay amaba dib u dhacay oo ah doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada dabcan dadku waxa ay ka qabeen filashooyin waaweyn waxaanad ka garan karaysaa qaabka ay shacabku uga qayb qaateen iyo dabcan jilayaashii ama political actorskii ama xisbiyadii oo iyaga laftirkoodu isku dayaya si ay dadka u hantaan laftirkoodu keenay ama soo sharaxay dad
loogu talagalay inay shacabka runtii fariinta gaadhsiiyaan marka runtii saddexda xisbiba markaad eegtid waxay isku dayeen inay dadka gaadhsiiyaan fariinta ay wadaan oo ah isbeddel waxaana keentay in dadku runtii ay si weyn uga qayb qaataan una riyaaqaan dabcanna aynu ognahay sidii dadku ay uga wada qayb qaateen taasi waxay dhalisay filasho sare taasoo maanta aynu u joogno sidii loo bilaabi lahaa in mudnaanta la kala siiyo dabcan waxaynu ka warhaynaa mar kasta oo doorasho dhacdo inay dadku filasho leeyihiin haddaynu si kooban u dul istaagno golayaasha wakiilada dadka badankoogu qodobka ugu badan ay ka hadlayeen murashaxiinta oo imika ah xildhibaano ay ka hadlayeen waxa weeye marka golaha wakiilada la joogo in kaalinta korjoogteynta kor loo qaado oo micnaheedu tahay oversight-ka oo aynu uga jeedno in dib loo bedelo dhaqanadii hore ama ay wax ka bartaan baarlamaanadii ka horreeyey tusaale ahaan markay noqonayso mooshinada sida ereygan la isticmaali jiray in dabayl lagu ansixiyo kale waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid aan doonayay miisaaniyadda inaan fursad u helo subaxii baan soo kalahay dabeetana maqaaxi u dhow baan fadhiistay golaha wakiilada anigoo sugaya in la ii kaxeeyo ayaa xildhibaankii soo ansixiyay iigu yimid meesha marka in dadku badankoogu waxay filayeen in korjoogteynta kor loo qaado sidoo kale oversight-ku wuxuu inaga caawinayaa fursadda ama qodobkii ugu weynaa ee ay murashaxiintu ku hadleen ama ay ku ololeeyeen oo ah la dagaalanka musuqmaasuqa si musuqmaasuqa wax looga qabto waxaa loo baahan yahay in dhammaan dhidibada dowladdu isdheeli tiraan iskor joogteeyaan waxa kale oo muhiim ah oo qodobada runtii soo noqnoqonaya ah in wax laga qabto ama golaha wakiilada cusub adrees gareeyo galdaloolooyinka badan ee sharciga ee ku jira shuruucdeena tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa xeerarka doorashooyinka oo kale xeerarka doorashooyinka waxay leeyihin galdaloolooyin badan kuwa ku soo socdaana way jiraan tusaale ahaan doorashooyinka soo socda oo 5 doorashoyn filaynay 3 baynu galnay waxaan sugaynaa tii wakiilada tii golaha guursiga sugaynaa waxa kale oo jirta qaabka representationka ama matalaada waa xeerarka dhigaya degmo dhan oo 30,000 ama 40,000 oo qof oo degan oo dhammaantood codeeyay ay waayaan xubin matasha golaha deegaanka waa xeerarka dhigi karaya in meel aan caasimadda ka mid ahayn oo mii ah ay xildhibaan ku yeelato golaha caasimadda marka in galdaloolooyin fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa doorashooyinku oo ay ka mid yihiin kuwa badan oo imika aynu joogno in arkaynay la isku dayo in wax laga qabto waxa kale oo aan meesha ka maqnayn doorashooyinkoodna si kastay u qurux badnaayeen haddana waxaa daba socotay inay ka maqnaayeen sidoo kale haweenku gaar ahaan in markaa galdaloolooyinka sharciga laga saaro lana helo sidii dhammaan doorashooyin loo dhan yahay oo dadku ka wada qayb qaataan mustaqbalka la helo marka baarlamaanka cusub waxaa laga rajeynayaa in aanu ka dhiganin arrimaha ugu dambeeya ee uu hore wax uga qabto waxa kale oo shacabku runtii rajeynayaan oo ay muhiim tahay laguna ololeeyay in kor loo qaado daahfurnaanta xidhiirka dadweynaha iyo in kalsoonidooda la dhiso dabcan sidoo kale baarlamaanada casriga hadda waxay door weyn ku leeyihiin siyaasadda arrimaha dibadda waxaan ognay dalka Soomaaliland wuxuu raadinayaa ictiraaf caalamka ka helo isagoo u maraya wada xaajoodka uu kula jiro Soomaaliya waxa la rajeynayaa golaha cusub ee baarlamaanku isagoo hakii markii hore furay in lala hadlo dawladda Soomaaliya in uu isku dayo inuu fahan dheeraad u yeesho inuu xukuumadda kala shaqeeyo inuu siyaasadda dejiyo inuu guddiyo sameeyo cilmi baaris sameeyo oo 10 sano ee wada hadal ku jirnay dhinacna u socon waayay dhibaatooyinka haysta dabcan waxa kale oo soo noqnoqotay arrinta la xiriidha wax ka bedelka dastuurka dadku badanka marka laga hadlayo dastuurka waxay u qaataan wax maalin iyo habeen lagu bedelay dastuurku waa arrin waqti dheer qaata waana futuristic mustaqbalku eega 100 sano soo socdo eega marka 20 sano oo aynu dastuurkeena uu shaqeynayay waxa sidoo kale soo baxay inuu gaabis ku jiro marka la leeyahay marka dib ha loo eego ama hal la furo ama constitutional review hal la bilaabo waxa laga yaabaa inay processka laftirkeedu 10 sano qaadato waxaan example ka dhigan karnaa wadamada jaarka sida Kenya oo kale oo constitution casri ah samaysatay kii horena bedeshay laakiin waqti dheer iyo consultation iyo fiiro badan gelisay intaas ayaan culayska saar lahaa kulli iyadoo faahfaahin oo tafaasiil dheeraad ah waxaad ka helaysaan halka aan ku daabacnay ama website-yada sidoo kale arrinta la xiriirta golayaasha deegaanka oo aad moodid shacabku inay aad u daneynayeen waxa ay leedahay iyaduna mudnaanteeda iyo muhiimadeeda waxaanu eegnay markaa golayaasha deegaanka gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxa aanu u aragnay inay muhiim tahay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa inaanu isbedel sameyn karin ilaa uu marka hore isagu isbedel isku sameeyo waxa la yiraahdo administrative reform inay gudaha hay'adahan dib isu habeeyaan dib u baaraan dhibaatooyinka haysta
kadibna markay intaa baaraan ay isku dayaan inay wax ka qaban karaan waxyaabaha aynu ognahay inay muhiim tahay inay dul istaagaan waxa ka mid noqon karta maamulka dhulka oo waqti badan ka qaadata waxa sidoo kale ka mid ah kordhinta soo xareynta dakhliga dawladda hoose iyo dabcan waxaan afka qalaad lagu dhahaa tax compliance marka waxaan soo jeedinay in dawladda hoose ay isku daydo hab casri ah oo caalamka la jaan qaadaya iyaduna cashuur fiican kororsan ku heli karayso ama waxaan afka qalaad lagu dhahaa digitalization waxaan dhammaanteen ka warhaynaa cashuuraha qaabka ay u qaadaan inaanay ahayn wax qof kasta u fahmi karay taasoo keeni karta inay dadku dib uga gaabiyaan marka waxay keeni kartaa haddii dawladda hoose rabto inay kor dakhligeeda u qaado inay dib cashuuraheeda iyo qaabka ay u qaadayso ku noqoto sidoo kale waxaa muhiim ah marka la rabo in magaalo la dhiso asaaskeeda wax laga bedelo dabcan caasimaddu way fidaysaa way ballaaranaysaa maaragtay waxaan la yidhaahdo migrationka ku badan sidaa daraaddeed waa in ay yeelataa waxaan la yidhaahdo urban development plan marka caasimaddu haddii aanay lahayn qorshe ballaaran oo sal ballaaran oo in badan laga soo baraandegay waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka jira ee haystaa way sii dheeraanayaan waxaa sidoo kale muhiim ah oo runtii dadkuna aad uga hadleen waxaa la yidhaahdo soo nooleynta xeerka meeqaamka caasimadda Hargeysa City Charter Act oo runtii in badan hore looga wada hadlay laakiin laga yaabo inuu hakaday marar badan marka waxaan soo jeedinay in dib loogu noqdo la riixo la isku dayo in la fahmo horta caqabadaha hortaagan waa maxay marka inahaas ayaan kusoo gabagabeynayaa doodeenu nuxurkeedu waxay ku saabsan tahay saddexdan mas'uul labada mas'uul ee duqa iyo gudoomiyaha gobol iyo gudoomiyaha baarlamaankuna iyagu shaqadooda ugu weyn waxay noqonaysaa in ay wali may gaadhin xilli aynu Cabdirasaaq oo maxad qabatinahano in talada iyo tusaalaha inaga timaado inteena aqoon-yahana ay qaataan ku amal falaan Dr. Saad Ali Shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda wuxuu bartay cilmiga beeraha iyo cilmiga dhaqaalaha kaalinta ugu muhiimsan waxaan doonayaa in fahanno qof walba doorka uu ku leeyahay kaalinta ugu muhiimsan ee baarlamaanka waxyaabaha ugu xasaasisan ee baarlamaanka iyo golaha xukuumadda dhexmara ayaa khuseeya oo arrimaha maaliyadda iyo maamulkii budgetka iyo hawlaha kamida waxaa ku soo xiga Sucaad Ibrahim Cabdi Sucaad waxay baratay cilmiga sharciga waxay la taliye ka tahay barnaamijka Somaliland iyo Somalia Amplify for Change fund oo xaruntiisu tahay Ingiriiska waa madaxa hore ee Somaliland u qaabilsanaa hay'adda Progressio waa cilmi baaris 25 sano u dambeeyay ku soo dhex jirtay civil society-ga kaalina ku lahayd xalinta khilaafaadkii kamid ahayd gudiyadii aqoon-yahankii soo abaabulay xalinta khilaafaadka doorashooyinka hore dabcan kana mid ahayd musharaxiintii golaha wakiilada u dambeeyay maadaama ay institutionska middaas ku soo jirtay iyo doorashooyinka halka iyadana ay miisaanka ku saaran ay dood ka soo galaysaa waxa weeyaan participation oo ah kaalintii haweenka iyo challengeski waxa kale ka mid ah maamul dhiskii iyo caqabadaha ay u baahan yihiin reformiska loo baahan yahay dhanka midig waxa iga xiga Ahmed Dalal Faarax wagaasimihii hore ee wasaaradda duulimaadyada rayidka ah sidoo kale wasaaradda qorsheynta waxa muddo 5 sano ah waxaan doonayaa in isla faahno qof walba halka uu ka soo galay si su'aalo hadhow ay waxa muddo 5 sano ah dawladda hoose kala soo shaqeynayay xidhiidhada iskaashiga caalamiga ah oo la taliye kala ahaa iyo isu duwidda xidhiidhadaas sidoo kale waa dheere muddo ku soo shaqeynayay kobcinta iyo tayeynta hay'adaha dawliga ah oo wasaaradda qorsheynta kala shaqeeyay kamid ahayd barnaamijka UNDP ee lagu kaalmeeyay Bilayska iyo garsoorka Somaliland waxa kale oo madax ka soo noqday Somaliland iyo Soomaaliya barnaamijka PC UN IFAD Ahmed halka uu isaguna ka soo galay waxa weeyaan xogta uu ka hayo dawladda hoose galdaloolooyinka jira ee u baahan in reform lagu sameeyo gaabiska jira iyo meelaha ay tahay maadaama oo la soo qaaday prioritiska ballanqaadyadii hore ee badnaa iyo meelaha ay tahay inay prioritiska saaraan aad baan u soo dhaweynayaa saddexdoodaba sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha wakiilada qaabkay doodeenu u socon doontaa waxa weeyaan doodwadaaggeenu waa su'aalo saddexda area sheegay ku kala saabsan oo aynu saddexdan mudane weydiinayno marka ay cabaar socoto deeta mikrofoonka idinku soo wareejin doonaa
qof walba laakiin hal daqiiqaan u ogolay si aynu waqtiga uga faa'iidaysano marka qof walba pointka inuu markaba galo si hal daqiiqo ma yara su-aasha haddaba aynu wasiirka ka bilowno. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها بارلمانكا عبد الرزاق مدحدا يما تشرف تكريالكم فرديدا كسو قيب غلاياشا دلنيردا بعد صحافة قدقي موضوع والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو موضوع عن السونمي يالكن لغا سو جيديي ورقدي koobnayd wuxuu ku saabsanaa doorashadiis xambaarsanayd iyo ballanqaadyadii iyo waxyaabaha mudan horta waxaan ku bilaabayaa ballanqaadku waa wax ka mida nidaamka dimuqraadiyadeed ee ku salaysan doorashooyinka musharaxiintu inta badan waxay ka iibiyaan dadka waa ballan dadkuna waxay iibsadaan ballan waa karansiga amba lacagta saaxadda siyaasadda wax la isweydaarsado laakiin ballantaas mararka qaarkoodna way rumowdaa in badanna ma rumowdo xitaa qofkii ballan qaaday isagoo ka daacada oo doonaya inuu fuliyo ballamihii uu soo qaaday baa haddana duruufo ka hor yimaadaan aan u ogolaanin inuu wada fuliyo haddaan tusaale idin soo qaato inta badan musharaxiintu waxaa laga yaabaa inay usoo ballan qaadaan ciddii soo dooratay inay adeegya u sameeyaan kaabayaal u dhisaan waddooyin u sameeyaan iyagoo ku xisaabtamaya waxaa laga heli doonaa miisaaniyadda laakiin miisaaniyadda 80% way suntan tahay 50% waa mushahar lama weecin karo 30% in ku dhowna waxa weeye waa hawl socodsiin waa stationery iyo petrol waa wuxuu ku shaqeynaya qofkii mushaharka qaadanaya marka qof markuu yimaado wasaaradii amba hay'adii amba xafiiskii waxa uu soo baxaysa mar kaliya in duruufta jirtaa aanay u saamaxaynin inuu fuliyo ballamihiisii hore imka dowladaha hoose waxa laga yaabaa in xildhibaanada cusub uguma yimaadaan deymo iska daaba hanti ay sidii ay doonayaan ay soo ballan qaadeen u isticmaali karaan marka waqti badan baa laga yaabaa inuu kuba qaadato deyntaas si loo bixin lahaa marka qofku markuu ka joogo saaxadda xilka dibadda sida wuxuu arkayo way ka duwan tahay markuu gudaha soo galo marka waxaan runtii ka codsan lahaa codbixiyayaasha inay siyaasiyiintii ay soo doorteen ay ku soo doorteen ballanqaadka ay waqti siiyaan taageeraan u samraan wasiirku wuxuu ka hadlay filashada shaqada ugu muhiimsan saan hordhaca ku sheegay ee u dhaxaysa golaha wakiilada iyo xukuumaddu meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrinta barjadka inta badanna murana keenta kuna jirtay banalkeeda wasiirka su-aasha aan rabo inuu inoo faahfaahiyo waxay tahay aragtida uu ka qabo waynu naqaanaa gole wakiilo oo ay hogaaminayaan mucaarad iyo xukuumad markasta homework adag baa u yaalla adduunka oo dhanba maaha inagoo keliya ka bal wasiirku inuu taladiisa iyo aragtidiisa saacad wasiir horta sideedaba qaabkaan u wada shaqayno annaka iyo xildhibaanadu amba baarlamanku waxaa qeexaya shuruuc baa qeexaysa iyo xeerar budgetka samayntiisa iyo maamulkiisana waxaa jira habraac buu leeyahay isaguna sharciya oo sharci baa qeexaya haddaan tusaale yar in siiyo halkuu baarlamanku ka soo galo miisaaniyadda samaynteedu waxay bilaabantaa bisha May waxay socotaa ilaa bisha October waxa ugu horeeya la qabtaa waxa weeye warqad la yiraahdo budget outlook paper oo qeexaysa xaaladda dhaqaale markaa taagan marka labaad waxa loo gudbaa warqad kale oo MFF la yiraahdo macroeconomic fiscal framework
oo sheegaysa 3 sanadood ee soo socda xaaladda dhaqaale si ay noqon doonto iyo miisaaniyaddu si ay u ekaan doonto halka marka la marayo wada tashi wax la yeeshaa guddida miisaaniyadda ee cabinetka ama golaha wasiirada taa marka halka la dhaafo waxa loo gudbiyaa golaha wasiirada halkaas lagu manaaqasheeyo halka markay soo dhaafto oo marka ugu horeysa lala kulmo guddida dhaqaalaha ee baarlamaanka guddida dhaqaalaha baarlamaanka markay dhaafto waxa lagu marti qaadaa hay'adaha dawladda inay soo qadimaan miisaaniyadooda dabcan waxay soo qadimaan miisaaniyad ku salaysan baahidooda laakiin baahidooda ma wada dabooli karo marka gorgortan baa jira ilaa lagu fadhiisiyo inta markaa la awoodi karo miisaaniyadda taa marka la dhameeyo golaha lagu celiyaa wasiirada waa la munaaqasheeyaa waa la ansixiyaa markaasaa loo soo gudbiyaa shirguddoonka baarlamaanka shirguddoonku markaa way qaybiyaan golahay u qaybiyaan golahaanu tagnaa markaa oo ka difaacna ka hadalla oo ka soo present garaynaa miisaaniyadda ka bacdi waxaa loo gudbiyaa guddida dhaqaalaha miisaaniyadda way soo akhriyaan golaha lagu soo celiyaa golahu ka munaaqashooda haddii loo baahdana waa naloo yeedhaa haddii kalena iyagaaba ku filaada marka golaha ay ka soo noqdaan way nagu soo noqdaan wixii feedback ee golahu laga helay ay nagu soo celiyaan dabeedna waa la aamin gareeyaa dabeedna sidaas lagu approve gareeyaa golahu ku ansixiyaa laakiin halkaa kuma hadho marka la ansixiyo miisaaniyadda waa la fuliyaa sidee u tahay baa loo fuliyaa dabeedna markaasay bilaabataa hawsha dabagalku amba ku ilaalinta ama korjoogistu oo guddida dhaqaalaha ayaa had iyo jeer si joogtaa aanu u kulannaa aanu warbixinna ka siinaa talana naga siiya marka horta sidaas baanu u wada shaqaynaa annaka iyo golaha wakiiladu markay timaado xagga miisaaniyadda budgetka qaybtiisa shaqada aan ahayn developmentka loogu talagalay inta badan waxaa ka soo noqda doodo qaabkee yaa community-gan lagu celinaya developmentka sameynaya saacad wasiir yaa u matala marka la dejinayo budgetka tusaale ahaan gobol hebel intaasu leeyahay degmo areadaasaynu gelaynaa areas community-gan beneficiary-ga ka ah miisaaniyadda yaa ku matala processka samaynta horta waan soo dhaafee marka la sameeyo MFF-ka waxaa lala kulmaa bulshada waa lala qaybsadaa marka feedback-ooda halkaas ay ka geystaan laakiin arrinka mashaariicda iyo gobollada amba degmooyinka miisaaniyaddeenu ma gobolaysna miisaaniyaddeenu way wasaaradaysan tahay marka wasaarad walba dabcan iyada adeegyada ka fidisa degmooyinka iyo gobollada una xogogaala meeshii baahi ka jirto iyo meeshii aanay baahi ka jirin marka iyada ku soo darsataa miisaaniyaddeeda sidii loo dabooli lahaa meelaha baahidu ka jirto kasoo qaad wasaaradda tacliinta oo kale waxaa laga yaabaa inay sanadkan ay doonayso 3 degmo amba 4 degmo waan iskuulo lahayn iskuulo laga dhiso miisaaniyaddeeda ku soo darsanaysaa saddexda magaalo waxa laga yaabaa midna ay tahay Sool midna Sanaag tahay midna Bari tahay xamjada Togdheer ay tahay midna ay tahay waa laga yaabaa Awdan marka wasaaraddu baa soo xusha marka wasaaradda soo xusha iyada wuxuu ogaala baahidu meesha taalo xagga budgetka wasiirku sida imika tahay buu u sharxay laakiin waxa aniga in yar aan qoonsadaa national development plan iyo budgetkeedu isma waafaqsana haddaanay iswaafaqinna waxa weeyaan waxay noqonaysaa inuu documentna inuu live noqdo oo ah budgetkii national developmentkiina inuu noqdo inuu shelf papers marka instead wasaaradaha marka horeba iyagaa u soo gudbiya wasaaradda qorsheynta baahidooda waxay wasaaradda maaliyaddu dib ugu noqotay wasaaradaha meesha ma taale waa in wasaaradda planninka iyo qorsheyntu oo labadooda la isku yidhaahdo Ministry of Economic Development inay labadoodu ka wada taliyaan prioritiska halkaa yaalla waan ku raacsanahay wasiirkaygii qorsheyntu ahaa inaanan weli gobolaysnayn oo 20% loogu talay degmooyinka ay decide gareeyaan guddiga budgetka ee cabinetku manaynan gaarin weli waqti lala tashado communitieska waa wasaaraduhun baa soo sameeya laakiin anigu waxaan
ka fiicnaan lahayd inuu noqon lahaa dee laba document oo wada shaqaynaya hal document halka siyaasadda MMEF-ka ay wasaaradda maaliyadda keligii sameynayso inay wasaaradda qorsheyntu ay soo sameyso economic situationka dalka danna usoo gudbiso wasaaradda qorsheynta marka halkaa wasiir weli xal ma loo helay marka guddida miisaaniyadda ee golaha wasiiradu ay munaaqashaynayaan miisaaniyadda waxaa laga duulaa NDP-ga amba qorshaha qaranka laakiin xaqiiqdu waxa weeye qorshaha qaranka inkastoo aynu u baahannahay haddana siduu imika u dhigan yahay practical maaha waayo waxa ku qoran baa laga yaabaa 5 sannadood ee soo socda inaynu gelino dalka ama maal gelino ilaa $2 bilyan $2 bilyan waxaa laga yaabaa inay qorshaysan tahay in 200,000 miisaaniyadda laga helo 800 milyan laga helo hay'adaha ajnabiga hay'adaha caalamiga 800 milyan hay'adaha caalamiga dee lagama helo marka maadaama aan laga helin waxaynu u baahannahay inaan miisaaniyaddeena leekaysiino jeebkeena ay runtii loo baahan yahay haddii aynu hayn loo khayraad helo amba layna ictiraafo amba wax layna deymin karo marka hankeena kor baynu qaadi karaa wax ka baxsan jeebkeena maanta baynu ku hamiyi karaa laakiin runtii waxaynu u baahannahay inaynu isleekaysiino kolley dee marka wax la ogaadaa iyo xalkana la raadiyaa anuu kolley musharaxiintii baan ka mid ahaa dareenka jirayna wuxuu ahaa horta fikirkan maanta ku hadlaya waa mid madax bannaan siyaasiyad madax bannaan musharaxiin ayaa ololeynaysay musharaxiintu siduu wasiirku inoo sheegay aanu ka mid baana laakiin dhibaatada taagan waxay tahay musharaxiintu iyagoo aan ogeyn facts and figureska budgetka iyo qaabka loo habeeyo iyo dhibaatada ka jirta iyo waxa la hayo ee gunta yaala ayaa ballanqaad la sameeyay marka waxa weeyaan ballanqaadkii tuuladii aad codka ka filaysay aad u samaysay ee imika hor yaala golaha cusub markaas sidee buu caqabada ugu horeysa imanaysa waxa weeyaan ee dowladda iyo hor imanaysa golaha wakiiladu sidee baa loo manage garayn karaa expectationska ay abuureen golaha wakiiladu dadkii u tartamaya imikana qaarkood ku guuleysteen inay ka mid noqdaan golaha waxaa looga baahan yahay golaha markaa xubnahan imika jooga inay ka shaqeeyaan oo ay dib ugu noqdaan filashada badan ku abuureen dadkoodii ballano badan baa la qaaday oo qaarkood aan kuba jirin awoodaha qofka musharaxa waxa laga yaabaa inuu iska yiri jaamacadaan dhisaya sidoo sharci dejina sidoo kale wasiirku wuxuu noo sheegay inaanay budgetkiiba war idinkoon u hayn aad ballanaha qaarkood gasheen الحل إبكا ولا سويبي قوله صوب حي لبيستك في إلهي وقدره بصوب فرستي ما حد سلاده هي بريورتيسكا ويكفي عن إن الساران قولها شرع دجين تكهله ما كوي حوارين كسوق عنا برلمان سياسي بريورتيسكا سلاده هي ويكون قروح بدن تيا هلكا إن بوحيان ما شرته كل ده قوله هالقف ما هو اللي بيستيت قف waddankoo dhan matalaya gobollo ka yimid degmooyin ka yimid kala duruufo gadisan marka isma raaci karaan duruufo xalna gobolladoo dhan isku si xal looguma raadin karo laakiin waxay ku xidhan tahay qaabka loo habeeyo guddi hoosaadyada golaha ee arrimaha ka wakiilka ah ma yihiin dad awood buuxda u leh inay fahamka ay wasaaraddu inoo sharaxday xagga budgetinka iyo waxyaalaha ku jira si guud iyagu eegi karayo oo ku saleyn kara markaa waxay doonayaan inay wax ka qabtaan ay kala shaqeyn sababtaa dee goluhu isagu awood uma leh
maamulo wasaaradana kuma maamuli karo laakiin wuu ku kor joogtayn karaa inta yar ee 200 kun meelaha la gelgeliyay ee wasaaraduhu waliba cayimeenan cid kala cayimin sanadkan hadii la geliyay tuulo X sanadka dambe ma la gelin karaa tuulo Y oo kale way ka tala bixin bay ku leeyihiin laakiin maamul joogta iyo maaragtay joogta maatin saad su'aasha taas aan ku xigsan waxa weeyaan hay'ad kasta dastuuriyan awooday leedahay oo ka eegaya capacity building iyo aqoontii institutionskeena soo lahayd institutionadan baarlamaanku wuxuu leeyahay madax banaani iyo awoodo xadidan oo meel ku dhamaada xukuumadana meel bay ku dhamaadaan xalkuna wuxuu ku jiraa halka ay ku dhamaadaan oo iska dhaafin sideebaad leedahay awoodaha sida ugu quruxda badan ee baarlamaan mucaarad hogaaminayo iyo xukuumadda ay wada shaqeyn karaan taladaada ugu habboon isleeyo qoladaas in halka ha dhaafin oo saa waxyaalo qolad maxaa ka tala anu mar walba waxaan aaminsanahay goluhu inaanu ahayn golo hal aragti ku salaysan goluhu waa 82 qof halka musharax 3 karakter buu ciyaaraa oo leeyahay dabciyan oo isbedbedelaya oo waxa saameyn ku leh social political environment kan uu ku nool yahay marka goluhu ma u leeyahay awood inuu isagoo golo ah uu hal priority ama 2 priority uu sameeyo taasaa muhiima golayaasheenuna dee maanta may bilaabmin 19 bay soo bilaabmeen waxaa jira casharo badan oo laga bartay marka waxa weeye casharada laga bartay bay u baahan yihiin horta intaanay arrimaha faraha hore la gelin inay wixii laga qoray ee laga bartay ee horta dib u eegaan oo ay maaragtay ogaadaan halkeebay caqabadaha ugu badan ka jireen isfahamka wada shaqeynta golaha iyo xukuumaddu masalan dastuurku wuxuu leeyahay way kala madax bannaan yihiin laakiin haddana dastuurku wuxuu awood ballaaran oo xoogan siinaya madaxweynaha qodobada 83 ilaa 39 bal malaynaya madaxweynuhu wuxuu leeyahay 19 awoodood waa awood wax badan oo awood oo baarlamaanka u yaala oo oversight ma jiro hay'adihii oo dhan buu magacaabaya xukuumadii buu magacaabaya hay'adii madaxa bannaanaa buu magacaabaya marka waxaad moodaa dastuurku laftirkiisu inuu markii la daraaf gareynayo si maaragtay aan israacsanayn loo sameeyo awoodaha awood qaybsiga marka intee in leeg bay golaha wakiiladu awood u leeyihiin inay oversight buuxda ku sameeyaan xukuumadda waa su'aal meesha taala waa mid u baahan horta hogaamin u baahan hogaamin waliba xirfad u leh in ay sameyn karto inay golaha kala firirsan ee kala aragtida duwan ee marna xisbi noqonaya ee mar beel noqonaya ee mar noqonaya shakhsi interest leh in awoodiisa iyo aragtidiisa meel la isugu geeyo oo la abuuro jawi gole ka turjumaya baahida dadkii uu ka yimid taasi suurtagal ma u tahay hogaaminta golaha wakiilada qoraaladii hore looga qoray waxay sheegaysaa oo ku jirno anu qayb ka ahaa waxay sheegaysaa inay golayaashii hore ku guuldaraysteen marka iyadoon xukuumadaba laga hadlin inay ku guuldaraysteen inay abuuraan golo hal waji leh way ku guuldaraysteen kow waxay ugu guuldaraysteen ma taalo xirfadii ma taalo xirfadii golaha dhexdiisa in-house capacity may jirin ay waxaa ku keenaan meesha waxa kaloo aan jirin resources ku filan oo ay howlaha ay dadka ay leeyihiin waanu matalnaa iyo xidhiirkooda ay ku hagaajiyaan isagana muu jirin fahamkiina dhexdooda muu jirin marka golaha marka aad doonaysa golo noocaasa inuu shaqeeyo waa inuu jiro horta jawigaa ka muhiima inuu jiro oo la abuuro
jawiga golaha in la adkeeyo oo la abuuro aragtidaasina hogaamin bay u baahan tahay. marka horta hogaaminta ayaa laga doonaya inay la timaado hagistii ay ku hagi lahayd hogaaminta wakiilada la doonaya. sababtaa dadkii waa inaad isku hayso, dadkii waa inaad aragti abuurta ah inay matalayaan interest dadkii ay ka yimaadeen, not interest reerahoodii iyo tii shakhsiga ahayd. marka haddaanay tiiba haynin dee iyaguna way kala dusayaano wasiirku marna xaafadii buu noqonayaa, marna saaxiib buu noqonayaa, marna xidid buu noqonayaa, dabadeedna si uma wada maamuli karaysa. marka waxa weeyaan horta jawiga ha abuuraa. waxaan u imi Axmed baan u imanayaa labadii wadi soo noqonaya. Axmed oo dastuurkeenu waxa uu sameeyay decentralized buu ka dhigay maamulka, maadaama aad kusoo dhex jirtay fiilka oo degmo ilaa heer tuulo hoos baa maamulkeenu uu furfuran yahay. inta badan dowladaha hoose adeegyadooda iyo maamul wanaagooda waa la dhaliilaa, xataa sida ay wax u iibsadaan ayaa la dhaliilaa. cagafaaday soo iibsanayaan. marka inta aynaan meel kale u tegin ballanqaadyo fara badanna way sameeyeen oo waliba waxaan ka hadlayaa golayaasha deegaanka ee 6 magaalo waaweyn. waxa meesha yaalana wada ogtay hadday budget tahay iyo haddii ay tahay shaqaale capacity-goodba. maxaad is leedahay way ku habboon tahay ballanqaadyadii inay halkaa ka bilaabo oo intaas ay fudud qaban kartaan, iyo sideedaba nidaamkeena furfuran iyo haddana dowladdan dhexe awoodaheeda kala xakameyntooda labadaas ka raac si ay priorities iyo promises loo soo waafajiyo iyo hawlaha waxa ka horeeya waxa hor yaalla sidii u qaban lahaayeen. laakiin haddaan iyada ku horeeyo maadaama aad sugaysaan waxay u baahan tahay horta in maanta Hargeysa ka soo qaadaya example 17 qof weeyaan 17 qof mid waliba sidaa la sheegay ballamuu sameeyay. marka 17kii hoggaan bay doorteen 1 iyo 2 mayor ku xigeenaa wishii mayorku joog lahaa. waxa importantna marka ugu horeysa inaad xasuusataan mooyaane madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay wasiirada 7 cisho ku xidhay hudaan uu balborta isbarta idinku intaydaan cid kale baran waxa ka wada shaqeynaysaana isbarta. waxa fiicneed si loo helo in filashooyinka laga filayo inuu mayorku 5 cisho ama 10 cisho meel isku keeno 17 koori oo mid walba fikradooda dhageysto marka hore mid walba buug si timeka. marka ay deetana si waadixa u qeexaan qaar baa isku mid noqonaya filashadoodu, qaar baa kala duwanaanaya, qaar baan la qaban karaynin, iyagu dhexdooda isa soo qanciyaan inay yiraahdaan war maxaynu qaban karnaa 5 sanadood ama maxaynu sanadka u horeeyo qura qaban karnaa. marka inay priority kala soo baxaan ay wadaag ku yihiin maaha hadhow kolaha markii timaado taydii baad ka tagtay kalaad ka tagtay. mid ay soo wada qeexeen ay soo la fagureen 5 xabo 10 xabo oo ay dabeetana yiraahdaan intaasaynu ku salaynaynaa markaynu eegnay awoodeena dakhligeena imanaya, markaynu eegnay kabkaynu helayno, markaynu eegnay waxyaalaha mala awaalka ah ee hay'adaha aynu ka helayno. u tilmaam meelaha ku muuqda ku dhaado halka marka waxay u baahan tahay for example imka mashruuca JPLG program buu la leeyahay dowladda hoose. Hargeysa waxay ahayd degmada aan aad uga faa'iideysan mashruuca JPLG because dhulka wareeriye barigaas oo aad iyo aad qiimo u lahaa. marka hore haday tooda iyagoon eegin horta ay marka hore isla soo qeexaan war khadaro maxaad haysaa hebelo maxaad haysaa hebelo maxaad haysaa iyo sidee u suurtagelaysaa iyo sidee inu kala horreysiinaa. marka waxay la soo bixi lahaayeen kitaab yaro gaaban oo ay ku wada shaqeeyaan ma garatay xitaa ha ku daraan dooxa nadiifinta dooxana markaas halkaas ay kaga darayaan oo oran lahaay waka. marka waxa u baahan inay marka hore meel isku yimaadaan waqti qaataan isbartaan soo wada saaraan. haday doonaan hay yiraahdaan 5 waxaynu qabanaa 2 sanado ugu horeysa 5 waxaynu qabanaa laakiin mid baa mar kastaba very important oo u baahan wada shaqeynta dawladda dhexe iyo baarlamaanka. dawladda hoose sharci ma sameeyaan laakiin waxa weeyaan shuruucda uu baarlamaanku fuliyo
ama wax u qabanaysa ama wax u sahlaysa waxaa ka mid a regiimka taxationka oo aan weli dalkeenan kala qeexnayn maxay dowladda dhexe leedahay maxay dowladda hoose leedahay oo loo qeexo marka regiimka ilaa la hagaajiyo dakhligoodu ma noqonayo mala awaal sugan waana very important in wasiirka maaliyadda Naam Galaar weyna la fadhiyaa dalku markuu dhaqaalihiisa rabo inuu kor u qaado waa inuu regiimka ama shuruucda cashuuraha uu si fiican u darsaa una eegaana in dastuurkeenu uu yahay hal qaran iyo laba maamul waa hal dowladood iyo laba maamul maxay maamulka hoose qaadi karaysaa muxuu maamulka dhexe qaadi karaya xitaa hadday noqoto liisamada shuruucda liisamada waa in ay dowladda hoosena qeexan tahay waxay qaadi karto albaab furashay qaadi karto hal challenge waxa weeyaan taa cashuurta waa regiimka صح system dowladihii baarlamaankuna joogo صح wasaaraddiina joogto صح in cashuuraha qeexideeda kala qeexideeda degmooyinka iyo gobollada kala saaro mid aan in yaran rabaa inaan ku daro waxyaalaha soo qortay waxaa ka mid ah legal framework ugu horeeya problemka haysta labada dowladood ta dhexe iyo ta hooseba waayo dastuurkeena 1997 markii la baaskareeyay I'm glad inay sucaadna ay sheegtay markii la sameynayay uu kala qeexna waxa isku qabsaday madaxweynihii markaa joogay ina cigaal Allahu naxariistay iyo ina xabsade ha isku qabsadaan qodobada isku hayeen markay ka heshiiyeen 19 qodob oo kale ayuu ina cigaal ka bedelay systemka 19 qodob oo kale waxa ka mid ah xasuustaa afarta hay-adood ee dowladda la maamul baarlamaanku la maamuli karo oo ahayd attorney generalka auditor generalka gudoomiyaha banka iyo hay-adda shaqaalaha waxa ay ahayd parliamentary approval bay lahaayeen waqtigii dowladdii cabdiraxmaan tuur waqti waliba hay'adda qandaraasyadana in lagu daro ku fiican shantaa hay-adood sababta executive-ka loola wadaajiyay baarlamaanka waxay ahayd in halka accountability iyo transparency shaqaalaha maanta wasiir uu eri kara inkastoo imka soo yar adkaanayno banka uu iska eri kara maanta madaxweynuhu sidoo kale attorney generalka sidoo kale auditor generalku ma madax banaano still waa part of executive marka aynu dowlad aynu rabno accountable transparent ahna waa inuu qofku confidence haysta marka waxyaalaha uu cigaal beriga ku daray inuu awoodiisa isagu keligii eri karo magacaabi karana ayay ka mid ahayd ee aan la eegin markii la aanu oray wadasha 19 ka kumeynaan heshiinaad ku soo dartay wax ka bedeshay intiisu buu eegtay in xabsada markaa waxyaalahaas jira in dib loo eego oo la eego sidee bay dalkeenu u noqon karaa accountable transparent oo aan dadkana la baro haddii taa la helo national development plan kuna noqdo hagaha dalka budgetka dalku loo noqdo ka lagu scrutinize gareynayo I think baarlamaanku markaa awood u yeelan kara صح aynu dawladii hoose ku noqono wali su'aasha adiga ku socotaa ceebaha dawladda hoose inta badan loo soo jeediyo balaaninka magaalooyinka kamida meelaha aad xogaal ku ahayd intii aad la shaqeysay laga yaabo xataa dunida waxa dhacda magaalooyinku magaalo hore oo dhex taala iyo ta dambeyn laga tabaabashaysto mar haddii caasimad noqotay inaga maca magaaladii cusbeed ee dhismaysay wali toon balaanku waa qaldan yahay wadooyinku waa go'an yihiin dhibaatooyin baa ka jira challenge-ka haystaa waa maxay waa la sameeyay GPRS baa la sameeyay wax kasta waa la sameeyay maxaa challenge-ka halkaa ka taagan maxaad ku dowladda hoose Hargeysa problemska dowladaha hoose oo dhan iyada hooyo way kuwa kalena waxa eegtaan sida wax u sameynayaan hadduu dhulku noqdo waxa ugu badan ee ay waqti geliyaan kuwa kalena waqti ma gelinayaan imaka haddaad eegto xeer number 17 waa dhulka wuxuu qeexayaa inaanay dowladda hoose dhul maamul shaqo ku lahayn waxa weeyaan in ay la yimaadaan iyagu qorshaha markay magaalo ballaarin sameynayaan in ay u diraan guddiga naqshadaha qaranka guddiga naqshadaha qarankuna ka fadhiistaan deetana ay u qoondeeyaan la geliya halkaa urban planki cidda sameynaysa waa wasaaradda hawlaha guud ka shaqaan lahayn baa hayaanba ma hayaanba shaqadoodiiba maaha
maasantahay intaanan usoo gudbin xaggan waxaan doonayaa Sucaad iyo Sacad intaa Axmed wax ma ku daraysaan oo isla issue-gan su'aalahan ah أنا أحمد دوني يلا واضحيون قضب كساب سنة برلمان كمعارض يدورد ورت برلمان ده معارض مجرو حزاب معارض أجري برلمان هو برلمان كقرنك صح عبد الرزاق مثلا برلمان كودن مع قرن كوكو هذايا مركا كوفيدي معارض كي محافظ مركا لما يمد برلمان إذا كسر سكدي صح ها أرنك كساب سن دولة هوسي qorsheynta dhaliisha ka jirta iyo service-kan ay bixinayaan sida loo improve gareyn kara community looga faa'iideyn kara labadaas iyo issue-ga uu ku weydiinayay yani laabin Axmed ee ahaa cashuurahan dawladda hoose maxaa ku raray dawladda dhexe oo adigu ka wakiil tahay cashuurihii horta runtii way qeexayeen cashuuraha waxay dawladda hoose qaado iyo waxa dawladda dhexe ay qaado waa su'aal kale hadii la leeyahay saa kuma haboonee cashuuraha la kala bedelo amba waxa lagu daro amba caynkaas wixii ardayda iyaga qaada liisamada iyaga qaada dukaamada yaryar ruux man ka qaadnaa wixii wholesale waaweyn iyo dukaamada waaweyn ganacsiga man liisans aan ka qaadnaa iyo macaashka meheradaha waaweyn baahida keentay oo Saacad Wasiir dakhliga dawladaha hoose wuxuu ka kooban yahay cashuur ay qaadaan iyo khadamaad ay qaadaan iyo kab ay ka helaan dawladda dhexe iyo kab ay ka helaan maxay international community-ga hay'adaha caalamiga iyo meel ay kireeyaan iyo kirooyin iyo ganaaxiyo intaasay ka helaan iyagu waxaan Saacad Wasiir doonayaa hal cashuura magaca doonta lahaatee oo dawladda hoose qaadi lahayd dawladda dhexe ee wakiilka wasaaradda ka ma qaada hadii ay qaado waa maxay baahida keentay horta waxa irtaalka uu sheegay Axmedo marba waxa jirtay inay magaalo walba dhigatay isbaarne oo gaari wala soo maray cashuure sax dadna waxa la deynay boqol dawlad min hine aan midayn dadna waxa la qaado dawladda dhexe cashuurtaas dadna ha u qaybiso ha u qaado ha qaybiso dawladda baabuurtan yaan la xanibin oo baabuurkii la soo cashuuray marka la dana la cashuurin marka taasina wali sameynaa dawladda dhexe u qaada dawladaha hoose boqolkiiba 12 iyo nus marka kab ma aha waa cashuurtoodii ku soo kab ay ku soo celisay waa cashuurtoodii u soo celiyay si lagu soo celiyaa taana su'aalaha qaybta kale ku sii socdo waxa doonaya ilaa 5-6 qof inaan qaado talo tusaale comment iyo su'aalkay doonto ba ahaato laakiin 1 daqiiqo 60 second waayahay bal la taw horeysa gacantii hadalka israacisa ka bilaabay bismillaah magacaygu waa Sahra su-aasheedu waxay ku socotaa wasiirka maaliyadda maadaama fursadan helo waxaan jeclaystay inaan weydiiyo waxaan gobolada dalka marka la eego gobolada bariga Somaliland Togdheer Sanaag iyo Sool dhammaan waxay ka qatayin kaabayaasha dhaqaalaha dawladda miisaaniyadda sanadka ee dawladdu u qorsheyso ma gaadhaa goboladaasi haddii si gaadho meelaha ay ku baxdo ma dabagal ma ku sameysaan ma leedin guddi dabagal oo sameys su-aashaasaan ku weydiinaa mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim banalka iyo waxaan u mahad celinayaa Isir oo inoo soo agaasintay madashan runtii beebarka ayaan akhriyay wax badan oo buuran oo cusub oo intii aynu ogeyn ay ku soo kordhiyeen ma jiro laba qodob oo recommendationada kamid ah oo build public trust ay u bixiyeen mid oo golaha deegaanka ay kula talinayaan in ay wax halaalayo wixii bal huyuun ahayd iyo ummadda isqabsigeeda iyo isaysadkeeda ay dib u soo celiyaan in ummaddu aaminto oo dawladda hoose ay noqoto meel cashuurta xataa dadku ay ku hirtaan oo la bixiyo qodobka labaad ee kulli baarlamaanka ay u recommend gareynayeen waxa uu ahaa in ay waxaan loo yaqaano Somalia talks ay cid kasto stakeholder iyo foreign policy cid kasto taqaana ay runtii ka qayb galiyaan baarlamaankuna xoog saaraan in dawladda ay kula xisaabtamaan waxay howlaha khuseeya runtii qodob yar oo iska kooban ku dari lahaa kulli waaqac ahaan doorashadan waxyaabaha guud ahaan labada golob aynu ka faa'iidno waxa kamid ah inay soo baxeen dad aan reeraha u tirsanayn oo codad ka baxsan kii reeraha helay waxa laga yaabaa qofku markuu xilka qabto inuu isu arko inuu reerka ka ugu tunka weyn yahay marka qodobka ugu muhiimsan waxa weeye in
cidda xilalka inta badan loo qabto dadka executive-ka ku biira inaanay u arkin in ay dadku yihiin xoolo meel ugu xaraysan laakiin ay yihiin dad u fakari kara sida iyaguba ay u fakaraan isla mar ahaantaasina ay ka talageliyaan fariintaada way gaadhay waad mahadsantahay arrinkii NDB3-ga iminka NDB2 uu soo dhammaanaya NDB3 baa socda oo qabyo qoraal ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo baarlamaankana waxaa ka saaran mas-uuliyad siyaada ah in NDB3-gaas uu ka duwanaado NDB1 iyo NDB2 oo uu waddanka direction cusub u jaaxayo marka maaliyadda iyo professor Wiwa iyo baarlamaanka NDB3-gaas maadaama la iswaafajinayo miisaaniyaddii iyo prioritieskii maxaad tala ka leedihiin NDB3 siduu u muuqan doonaa talabaad tripartite agreement miyuu jiraa oo ka dhexeeya saddexda wasaaradood ee miftaaxa waa waddanka because wasaaradaha kale baahiyaha un bay eegaan badanka marka weliba xeerkii law number 23 ayaan doonayaa inuu faahfaahiyo Wiwa insha Allah anigu su-aasha waxaan weydiinayaa wasiir Sacad Cali Shire su-aashaydu waxay ku qotontaa waxaynu ogsoonahay xildhibaanadeena baarlamaanku marka ay fasaxa galaan golaha inta badan waxay kuwii gobolada kalena waxay joogaan inta badan caasimadda kuwa caasimadda joogaan waxa laga yaabaa inay u fasax tagaan wadamadan jaarka ah si taa looga hortago markaad weydiisay ama ay hadlayaan la weydiiyay su-aasha waxay ku jawaabaan ma hayna dhaqaali dadkii aan soo doortay aan ugu tagno marka wasiirka waxaan weydiinayaa ma tahay in miisaaniyadda golaha loo kordhiyo si ay hawlahaas u qabtaan dadkii ugu noqdaan waayahay aan halkaa ku yara hakino jawaabaha aan ka soo bilaabo wasiirka su-aasha ku saabsan mashaariicda iyo gobollada bariga horta miisaaniyadda waxaa ku jira sanad walbaba 50 ilaa 60 mashruuc waxa la yidhaha wixii hantida silma guurta ah ama barnaamija programa 50 ilaa 60 mashruuc waxay ka yimaadaan wasaaradaha marka intii wasaaradaha kaga soo hagaagta ayaa gobol walba loo maalgeliyaa marka laga reebo 2 gobol gobolka Sool iyo gobolka Sanaag waxa miisaaniyadda loogu daray 2% ayaa meel loo dhigaa lacag ilaa 2 milyan lacagta ilaa 2 milyan mashaariic baa lagu sameeyaa sanadadii 2018 2019 2020 iyo 2021 waxa lagu maalgeliyaa mashaariic gaaraysa ilaa 20 ilaa 25 mashruuc oo u gaara Sool iyo Sanaag to dheereed waxa la qabtaa gobolada kale arrinka ku saabsan xildhibaanada iyo xiriirka la leeyihiin dadkii soo doortay runtii waan kula qabaa shaqooyinka xildhibaanada waxaa ka mid ah inay hayaan xiriirkii dadkii soo doortay iyo deegaanadii soo doortay waa run way jireen hadii jeer way ka caawdaan laakiin dee weli miisaaniyad xaggooda ka timo odhanaysa maanta waxaan u baahnay xafiisyo runtaan umaan arag laakiin waan qabaa ugu yaraan in gobol walba xafiis ay ku yeeshaan bermana marka iyagaa soo dalban dalabkaas aniga imaan laakiin runtii waa loo baahan yahay baan qabaa anigu ma aha miisaaniyad in lagu tago laga yimaado laakiin xafiis furan inuu jiro oo haddii doono bishiiba mar xildhibaanadii laga soo doortay gobolkaasi ama degmadaasi ay yimaadaan ay dadka la kulmaan waa loo baahan yahay baan qabaa anigu shukran isla qodobkaas wax ku daray buu Axmed Haye waxaan aad iyo aad muruga u leh su-aasha inankaas jeediyey golahu fadhiyadiisu dastuurkii ku qoran yihiin haddana marka ay fasax yihiin mushaharku wuu socdaa waa fasax haddana mushaharku wuu socdaa iyagu waa kalfadhi iyagu maaha shaqaale iyagu waa kalfadhi hadduunu qofku lahayn shaqo continuous sidaa uu sheegay xafiiskiisii ku noqonayo tegayo ka soo shaqaynayo inta uu fasaxa yahay marka waa fadhiyada ku mushahar qaataan fadhiyada ku mushahar golaha deegaanka waa sidaa marka iyagana maxaa siiyay inay markii fasax yihiin mushahar qaataan iyo sanad xuquuq golihii deegaankana ka saaray mar iyo sanad xuquuq
waxa weeyaan dadkan golaha yimid dad bay matalaan gobolay matalaan horta xildhibaanku waa inuu fahmo matalaadaasi inay mid dhaba tahay marka isaga laftirkiisa waajibaad baa saaran masalan maanta kalfadhiyadaasaan dib ugu noqday way cad yihiin waa 3 kalfadhi oo 7 ah sanadka dhan wuxuu shaqeynayaa 112 cisho ayuu shaqeynayaa sanadku waa 365 kalfadhi kastana waxaa u dhexeeya bil iyo 2 bilood oo fasaxa wuxuuna leeyahay mushahar iyo gunaano ma aqaan runtii intay qaataan kule raggu malaha way sii xisaabiyeen laakiin anigu maan garanahay marka waxaan isweydiinayay xildhibaanka masalan ka imanaya gobol kale waa markaynu si critical wax u eegayno waynu runtii doonayno inaynu wax saxno waa inay ka timaado cidda mas'uuliyaddu saaran tahay sixiddu gobolkii buu ka soo guurayaa Hargeysa imanaya Hargeysa 20 xildhibaan bay leedahay gobolkii wuxuu kala soo guuray dhaqaale guri buu ka kireystay halkan gaari buu ka iibsaday caruurtii buu soo raray iskuul buu lacag siiyay caafimaadkii uu Hargeysa ka bixiyay Maroodi Jeex waxa loo baahan yahay gabigiisa waa 112 cisho oo muddo u dhaxayso horta marka hore wuxuu wax ka jaray dhaqaalihii gobolkiisa soo gali lahaa qayb buu ka ahaa community-giisa ay ahayd inuu dukaankii jaarkaabu markuu ugu yar yahay biilu abuurayay horta taa waa tala bixinaan soo jeedin lahaa inay ka fakaraano at least intay waxa kala qaybiyaan gunadana maalmaha shirka loo baahan yahay 7 week weeye ay 7 week ku dheelada labada Hargeysa iska xoogay dhaqaale dhacdhaxashay ku bixiyaan inta kale goboladooda ay ku sugnaadaan si ay uga mid noqdaan dadka ay matalaan oo dadkuna kalsooni u helo sababta markii musharaxnimada dadku waxay ku oranayeen waxyaalaha ugu badan ay ku weydiinayaan waxa kamida oo kuwii hore intaan dooranay bay baxsadeen hadda anigu reer Hargeysanahay kuwii reer Hargeysa ka cabanaya balka gobol kale laga soo doortayna ka waran سؤالي وسير نقطة إنك الدولة هوسة وكيلك عبد الرحمن حامد صدح سؤالات بيستول صاري صدح ذوق كاجا جوابي مركا وجوه الرئيسة قرشها NDP مقالان أنا جيو سعدون شغلنا لبدي قفة بلعبة بانو هين وجوه الرئي شيء ده لقى لحامو هين إن جولة بدل لقى جاري إن نيروبي تلاذن لقوا سمين شيء قرشها لقوا سمين شيء لصاحره وماشي حين دعوة النقطة ضلك أي هيدوه يمدان هالكن جليا لكن ما أنت واحد فيه اللي عجائبة هذه بقى كورونا يا مركز مشروع ولا تكتو NDP ما كتشره وساردي هنا وقادر ليجين وساردي هنا ربي لكل شقيانا كم شقينا مين ولا بها يدي بدو قت ما دو سكترال بلان لسما السنة مركز إلا الله صاء أفشره هاي أده إنه إن هالكتاب هالدوكمنتو NDP أي استعمالان ما في عنانا ي NDP لا فيوتشر كله مركز واحد طلعه ولا لو سوتش يدي لها ما دام أي كذا إيمان يصير دبعته وسير هذا on isasiinaynin mas'uuliyadii waxa jira wasaarado ka tayo weyn wasaaradaha kala dhaqaalaha hay'aduhu soo galo dedan kuma laha inay NDP ga dhex dhigaan waa wasiir kale ila ogaanay buu koodhanaya qorshe halka ku jira marka waxa loo baahan yahay si loo helo qorshe dhameystiran inuu madaxweynuhu champion ka noqdo national development plan sida uu madaxweynuhu ku xigeenku NDP ga uga yahay waa inuu madaxweynuhu isagu kula xisaabtamaa wasiirada NDP ga halkeed marinaysa maalintaas uu document-kaas qiimo yeelanaya inta ka horeysa ama tuu ku sheeg ama 3 ku sheeg wuxuu noqonayaa un document aan dhaafin wasaaradda qorsheynta iyo dhalinyarada ka shaqeyso qura madaxweynuhu waa inuu kaalin xaggan law number 23 qorshayaasha soo qortay waxa weeyaan marka ugu horeysa problemka dalkeenan haysta waa laago cid daba socota shuruucda qabyada ah qof baa inan baa ka hadlay qof baa ka hadlay shuruucda qabyada ah waxaan tagay ilaa iyo aadan gudoomiyaha constitutional court on ku yiri 3 tafsiir buu dastuurku u baahan yahay waxa ugu yar baan ku yiri law number 23 2002 gii baa la qoray wasaaradda arrimaha gudaha waxa laga doonayay in sanad gudaheed ay ku soo qeexdo wixii dhawada dhameystiran
maantana waxaynu maraynaa 2 jeer baa la furay law number 23 lamana si fiican looma dhamaystirin marka yaa mas'uul ka ah maadaama uu gudoomiyihii maanta joogo baarlamaanku yaa mas'uul ka ah ma baarlamaanka ka ah ma constitutional court ka ah qabiyada taala ee shuruucda ama law number 23 ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto yaa qab taas ayadu la jirta صح ما صدقها waxaan ku soo noqonayaa mar kale iyo su'aashu wasiirku yiri mucaarad ma jiro baarlamaan su'aal kale wali halka igu laaban waa dhab golayaasha qaranku ay ku qasbayeen wada shaqeeyaan goluhu waxa jooga xisbiyada kala duwan oo mid walba aragtidiisa wato xisbiyada xildhibaanada joogaana waxa ay hadii sida saxda la raacayo ku qasbayeen in siyaasadda xisbigooda golaha ku metelaan ka mar walba fahamka imka muuqda waxa weeyaan aqlabiyada golaha joogta waa xisbiyada mucaaradka oo hadii aanay baynan ay tahay in siyaasadda xisbigooda metelaan xukuumaduna waa joogtaa iyaduna de siyaasadeedu wada hore khilaafiya uga dhacay labadii baarlamaan ee horeba ma isla baarlamaankan hore 2005 2007 beed marmalaya madaxweyne riyaale iyo baarlamaanku isku hor yimaadeen waxay gaadhay inay dad dhinteen in baarlamaanka la xidhay in wayna ogeyn mar labaad 2000 intii madaxweyne Silaaya joogay ilabankii garanaya wixii waxaan malnayaa doorashada horteedun bay ahayd waqti mar labaad rabshadu ka bilaabantay xiliyadii mashaariicda waaweyn la ansixinayay oo tii baarlamaanka la isku qabsaday oo tii xildhibaan xitaa xarunta CID-da lagu hakiyay marka mar walba baarlamaan uu hogaaminayo mucaarad iyo xukuumadda su'aalaha u yaala adag waana arrin iska caadi oo dabiici ah oo inaga quraan ugu koobnayn way aragnimadaada wasiir aad u soo joogtay kii khilaafka hore ee baarlamaanka hore ee xukuumadda aad ka tirsanayd madaxweyne Silaayo iyo way aragnimadaada kalaba sidee bay kula tahay waa loo heli karaa baarlamaan wakiiladan u jeeda siyaasadii xisbigiisa ee mucaaradka ahaydna ku socda xukuumaddiina ay wada shaqeyn karaan way aragnimadaada iyo taladaada dadweynuhu waxay doonayaan dawlad shaqaysa dawlad ay tiirarkeedu wada shaqeeyaan tiirarka fulinta tiiranta xersamaynta iyo cadaaladaba way saasay shaqo ku socotaa dadkana loogu adeegayaa haddii arrinku noqdo mudac ku taag hawshu way istaagaysaa cidda runtii dhibaatadu soo gaadhaysaana waa shicibka baarlamaanku mushaharkiisu iska qaadanaya wasiirkuna mushaharkiisu iska qaadanaya shaqada luntaa waxay ka go'an tahay qaranka arrin marka la keeno golaha baarlamaanka ee laga munaaqashoonayo waa in looga munaaqashado maskaxda lagu hayo danta qaranka dadka xisbi maaha danta xisbiga xisbi walba dee wuxuu isku dayay inuu adeego dalkiisa ama si ugu wanaagsan ku hogaamiyo mabaadi buu leeyahay laakiin marka arrin la keeno golaha waxaa loo gelayaa hab qaran baa loo gelayaa arrinka baarlamaanka mucaaridku ku badan yahay waxay noo gaara maaha wadamada dimuqraadiyadda ku shaqaysta oo dhan kuwo badan bay saan oo kale ay ka dhacdaa arrinkaas runtii ma noqdo issue marka waxaan rajaynayaa in la wada shaqeeyo dowladda dhexe baarlamaanka dowladda hoose hay'adaha kale oo loo shaqeeyo dadka mahadsanid golaha deegaanka wali wasiirka ganaalo su'aasha labaad su'aashan taa golaha deegaanka hore sax weeyaan baarlamaanku inta badan xukuumadda inuu balance gareeyo check and balance meesha uu jooga xukuumaddu iyadu saameyn intee leeg ayay tahay inay ku yeelato baarlamaanka ku dheedo yani ma isbalance gareeyaan labadu oo labada dhanba way ka imanayaan isla xisaabtanku mise baarlamaanka uu baa mar walba cidda la xisaabtamaysa xukuumadda baarlamaanku wuxuu leeyahay ilaa 8 xil buu leeyahay 4 gacanta loo taagaa waxa weeye xeer samaynta xeerkay sameeyaan waa ka ugu weyn runtii mar waxay ansixiyaan madaxda uu soo doortay madaxweynuhu mar waxay ansixiyaan miisaaniyadda laftigeeda mar waxay ansixiyaan wixii heshiisiyay caalamka lala galo waxaa intaa u raacda oo u dheer korjoogista howlaha ay hay'adaha dowladdu gacanta ku hayaan waxaa kaloo intaa u dheer wixii emergency ah
inay munaaqasho ka galaan marka baarlamanku wuxuu leeyahay xil korjoogin inuu ku ilaaliyo dowladda hawlihii loo igmaday ee miisaaniyadda ku jiray qaybta ka ahayd laakiin dowladdu amba madaxweynuhu kuma laha xil korjoog baarlamanka dastuurka qeexaya wixii ay sameyn karaan waxaanay sameyn karin isagu ma laha awood xeerarka ku ilaaliyo iyaga qudhooda maadaama uu head of state yahay xilka madaxweynaha kulli dee wuxuu ku cadyahay dastuurka ku cadyahay kuma jiro inuu ku korjoogo baarlamanka xilkooda laakiin baarlamanku wuxuu qaban kariyo waxaanu qaban karin dee constitutionka iyo xeerarka ay ku caddahay sucaad wax ku daraysaa intaa bilow ma nihin laakiin waxaa laga bartay wixii hore ayaa muhiima marka waajibka golaha cusub saaran waxa weeyaan maxaa laga bartay wixii hore maxay ka bedeli karaan horta waa shaqo iyaga u taala ee shaqo cid kale iminka u sheegi karto odhanayso halkaa iyo halkaa iyo halkaa mar maaha awooduhuna way kala cad yihiin ha badnaataba walow ay badan tahay awoodda madaxweynuhu oo anigu saan u arkayo shakhsiyan waxa weeyaan awoodaha badan ee madaxweynaha la siiyey waxay barbar socdo xuquuqo badan iyo waajibaad saaraya inuu mas-uul isagu ka noqdo stateka oo dhanba oo taasina mararka qaarkoodna waxay abuurtaa inay samaysmaan sida eedaha hore sheegayaan inuu wadankuba iska noqdo a bit of highly centralized marka golaha wakiiladu intee in leeg buu fursad u heli karaa inuu awoodaha badan dhex marmaro waxay u baahan tahay xirfado political skills iyo negotiation bay u baahan tahay waa miisaaniyadda oversight xeerarka ugu mudan inay xeerar sameeyaan xeerarkaasi inay hirgaleen iyo inaanay hirgelin xataa awood buuxdo male oo hore waanigii u lahayn capacity ay ku dabagalaanba male markaad xeerka doonaysid inaad dabagashid waa inaad information fiican heshaa ood haysaa informationkii ma hayaan facts baa loo baahan yahay figures laakiin haddaan wax walba ku saleeyo warkii suuqa iyo ay isku mid noqdaan ma keenayso xal marka waxaa laga doonayaa golaha inuu qaabkii ay hore wax u qabanayeen inay qaabkaa gebigiisaba bedelaan iyagoo qaadanaya wixii hore u jiray ayay u baahan yihiin anu taasan xoogga saaraya inay dib isugu noqdaan oo iyagu eegaan qaabkay u wajihi lahaayeen arrimaha waay axmed sharciyadaad adigu u badnayd caawa doodaada laba arrimood baa su-aal ka taagantay mid waa xeerka caasimadda challengeska hor yaalla oo kooban aad isleedahay way hor yaallaan experience-kaaga aad kula soo shaqaysay marka la eego dowladda hoose iyo waxa uu tari lahaa haddiiba la ansixiyo waayo aragnimadaada markaad eegto yacni halkay uga dhitinayaan waa halkee xeerkaas caasimaddu kaas waa qodobka labaad golaha deegaanka inta badan dowladda dhexe waxaa line minister ah wasaaradda arrimaha gudaha golihii deegaankii hore waxaa aada looga caban jiray su-aashaas wasiirkan oo kusoo celin doonaa xukuumadda dhexe waayahay in xukuumadda dhexe faragelin ku hayso tusaale ahaan maalinta golaha deegaanka maayarka la doorto ayaa la xidhaa in shirarku soo socdaan in shir dambe la qabsado taas waxay qasabtaa inaan maayarkii dib loola xisaabtami karin maadaama shir lagu bedeli karaba la sameeyo marka labadaa qodob waqtigiina waa inaga dhacay oo adoo iga raaliya aada igu soo koobayso horta anigu cabdirasaaq waan la sheergarayn doonaa waxay qoraal baan anigu kusoo gudbiyay dalkan 4 shay oo aan ogahay inuu legal framework ugu horeeyo ayaa dhibaatooyinka jira midna waxa weeyaan deficiency in institutionskeena ku jira ana hay'adaheenu tayo lahayn capacity building institutional development plan dalkan ma bala labadii sharci raaliga ahaa waxaan la taliyo wahaa cawl cilmi cabdalla markii la sameeyay xeerka caasimadda waxaan soo hayr gareynay niman khurabara ah oo laga soo hayr gareeyay wadamada dibadda problemku markii uu yimid laba arrimood baa hortaagan labada arrimood hortaagan wali ma hayo cid cad laakiin baarlamaanka dhexdiisa cid dan gaar ah kale ayaa joojisay at that time waliba executive-ka ku jiray marka
suuqa waxaad ka maqlaysaa degmooyin waqooyiga jira oo aan weli doorashooyinkii loo ogolaan baa loo hakiyey qolo waxay ku oranaysaa gobol toddobaad baa soo biiraya oo reer galbeedkiiba gobol afraad helaya qolada reer barigu waxay halkaasay ka taagan yihiin caasimaddu inay gobol gaara noqoto markaas waxyaalo badan oo waxaa jira xooraana laakiin qolada sharcigunbaa sheegi karta waayo uu 18 sannadood u fadhiyaa baarlamaanka dhexdiisa sharcigaas صح كاس غلط sharcigan kale wadda wasaaradda arrimaha guduhu waan horaan idinku sheegay dastuurkeenu waa one state two government state walba government walba waa lasoo doortaa marka dadweynaha doortay iyagaanay accountable yihiin wasaaradda arrimaha guduhu waxay leedahay doorkan xidhiidhin bay leedahay iyo joogtayn iyo korjoogid laakiin dadweynaha accountable yihiin dowladda hoose dadkii soo doortay bay u yihiin marka waxa weeyaan waxa fargulintooda ugu badan waxa weeyaan dowladda hoosena waa fadhid maalintii dhibaata dhacdana dowladdii wasaaradda arrimaha guduhu booliiskina gacanta ay ku haysaa labada isqabsadana kii dhinacooda ay dee la socduun bay u hiilinayaan oo ka kale xidhayaan markaa fargelinta laga arkayaa waa taa waa in laakiin markaanu eegto constitutionkeena accountability-ga ay wasaaradda arrimaha guduhu ay leedahay arrimaha dowladaha hoose waa oversight inay dowladda dhexe uga ahaato u sheegto oo idhaahdo meesha khalad ku jira coordination wixii ka socda iyo inay u standardize gareyso wixii loo qabanayo algaska loo kale sababta loo sameeyey waxay inay trainingyada dowladaha hoose iyo standardskooda iyo wuxooda ay kor joogtayso ay sucaad baa tiriyan waqtiga laba loo kala qaybin karaa waa mid short term iyo long term weeyaan sida xaaladdu imika tahay short term korta goluhu waa inuu ishabeeyo internally dhexdiisa uu isu habeeyo inuu aragti midaysan ka leeyahay wixii national issues ee uu doonayo inuu dowladda kala macaamiloodo maadaama isaga la siiyo oversight powerska laakiin aanu weli sideedii u gudan in waxay abuuri karaan doodaas oo caafimaad qabta maaha dood macaarid laakiin dood caafimaad qabta oo arrimaha ay ka taagan tahay sidii xal loogu heli lahaa ayay u baahan tahay qofna ku salaysnayn gobolna aan ku salaysnayn laakiin jawi dood caafimaad bay abuuri karaan aqoonna waa inay raadiyaan wixii aqoonta lagama xishoodo aan waxaan garanayaa golihii hore markuu yimid baa hay'adii Interpeace baa aan uga doonay capacity building fiican lacag fiicanna way haysay expertise baa la keenay meelo dee badan laga keenay dabadeedna golihii markii la furay horta hoggaanka goluhu maba kalaba dee wax walba wuu furaa wuu iska tagaa in qolyihii kalena way yimaadaan way baxaan si faana iyaga khusaynin markaasoo kale waxaad isweydiinaysaa adna waxaad og tahay inaanay waxaan aqoontii aanay gaarsiisnayn marka horta waa inaad deficiency-ga jirta aad og tahay diyaarna aad u tahay inaad waxaa wax ka qabato marka hogaamintu waa inay ku khasabto inay tababarada noocaas ceeb mala aqoon la'aantu laakiin waa meelaha wax laga barto oo misalan legal drafting ku aad buu ugu liita iyaga ku odhanaya ma naqaano oo waa meelaha aanu ka jilicsanahay inay dadka khibradda u leh waddanka jooga inay isticmaalaan hadday waayaanna ay outsource gareeyaan ay dibadda ka keenaan dee labadaba awood u leeyihiin dabadeedna ay ka bartaan long term-kana waxay noqon kartaa inay awoodaha aan sinayn in bala raadiyo xal loo raadiyo constitutional review in la sameeyo wasiirkan hal daqiiqo bay dhahdaa talo siinaya deetana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha baarlamaanka wakiilada oo aan ka rabo wuxuu kusoo talagalay wuxuu nowdgaraystay iyo hal issue oo nagu daray oo ah baarlamaankan cusub kaalin ma ka qaadan karaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya horta shaqada ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo dowladda hoose kulli constitution-kii xeerar baa qeexaya sida hawshu u kala qaybsan tahay laakiin aragtida waxa weeye labada gole imka la soo doortay waxay ku kala duwan yihiin golana waa gole sharci samayn golana wuxuu qayb ka yahay administration-ka iyo adeeg iyo execution-ka ayuu qayb ka yahay waxbuu fuliyaa adeeg baa loo soo doontaa dowladda hoose marka dabcan dee wada shaqayn bay leeyihiin hay'adaha
dowladda dhexe ee adeegyadaa sameeya marka xilka dowladda dhexe saaran waxa weeye sidii Axmed u sheegay inay ka warhayaan oo ku kormeeraan oo ku ilaaliyaan shaqadooda iyo inay tababar siiyaan iyo inay wixii taakuleynaya mataqaanaa supporta ay u baahan yihiin ay siiyaan way wada shaqeeyaan saasan qabaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka ugu horeysa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka xigta aad baan ugu mahadcelinayaa maxadka cilmi baadhista ISIR oo inoo soo qabanqaabiyey kulankan waan aaminsanahay inuu qayb ka noqon karo kobcinta iyo horumarinta dalkeenna waayo aqoonta iyo cilmi baadhistu oo waxyaabaha ay ummaduhu horumarka ku gaadhaan waxaan aada u qadarinayaa iyadana u weyneynayaa xeel dheerayaasha ka qayb qaadanayay doodda oo runtii mahadnaq ballaadhan iyagana aan u jeedinaya insha allahu tacaala waxaan isleeyahay doodahan oo kale waxay u baahan yihiin in la joogteeyo si ay uga faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadday tahay hay-adaha dowladda hadday yihiin hay-adaha kale ee madaxa bannaan iyo haddii ay yihiin institutionskeena kale ee ka shaqeeya servisyada kala duwan ee ummaddeena loo qabto waxaan runtii wax weyn ah sida hadda ay khubaradu sheegayeen inaynu kobcinno institutionskeena kala duwan aqoontooda iyo khibradooda inaynu kordhinno lagana caawiyo wixii goldaloolooyin ah ee marba jira insha allahu tacaala anigu ka shakhsi ahaan hoggaankii golaha wakiilada waxaan ballan qaadaya inaan soo dhoweyn doono cid kastoo wax ku biirinaysa golaha aan odayga u ahay ee aqoon iyo talo intaba ah runtii barnaamijka hadda halkan lagaga doodayey gola ahaan iminka dee annagu waa ku cusubnahay golaha wixiina laga filaabana waa maanta iyo wixii ka dambeeya ballanqaadyadii xilligii doorashada iyo filashooyinka ama expectationska bulshadu waa laba runtii arrimood oo waaweyn oo laga yaabo inay xagaldaaciyaan waxqabadkii golaha tusaale ahaan ballanqaadada la sameynayay inta badan waxay ahayd ballanqaado ku dabagal iyo sidaa la sheegayay oversight mooyaane aanay golaha wakiiladu wax shaqo ah ku lahayn hay-adda fulintu ay leedahay laakiin qofku u tartamaya golaha wakiilada arrimaha u ballan qaadi kara waxaa ka mid ah wixii resourceka dalka ah marka golayaasha la hor keeno kaga beegan ee sharci ugu ogolaanayo inuu ka qabsanayo iyo inuu u gelayo tabashooyinka iyo baahiyaha jira hay-adaha kala duwan ee dowladda oo uu gudbinayo shaqadiisu keliya maaha inuu golaha fadhiyo inuu xeer sameeyo inuu xeer ansixiyo inuu xubno dowladeed ansixiyo laakiin waxaa ka mid ah talasiinta iyo garabgalka hay-adaha kale ee dowladda marka xukuumadda wuxuu xaq ugu leeyahay inuu u gudbiyo oo hadduu arkayo tabasho ka jirto gobolkiisa oo wasaaradda maaliyaddu waxqabadkeeda ay heli karayso ama awoodaheeda ay ka mid tahay inuu la hortago haddii arrimaha gudaha ay tahay inuu la hortago hadday hay-adaha beeraha tahay inuu la hortago haddii ay xoolaha tahay inuu la hortago oo u gudbiyo si arrintaa laftigeedu wasiirku siduu markuu sharxay waad maqlayseen
baahiyaha jira way wasaaradaysan yihiin xildhibaanku marka waxay tahay inuu ka qayb qaato inuu u gudbiyo baahidii gobolkiisa isagoo oo wasiirka markaa jooga kala tashanaya wixii budget ah ee loo allocate gareeyay maalan wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale haddii uu uga baahan yahay barnaamij uuna ogyahay inay miisaaniyadda ugu jirto inuu prioritiesga siiyo gobolka uu isagu ka yimi isagoo sababeynaya waa xildhibaan qaran oo mas-uuliyad weyn oo guud baa saaran mid gaarina way saaran tahay oo halkii laga soo doortay bay ka saaran tahay marka arrimaha noocaas oo kale inay ballanqaadyadu ku salaysnaadaan bay ku fiicnaan lahayd laakiin inuu ceelal qodayo iyo inuu iskuulla dhisayo iyo inuu wadooyin dhisayo shaqada xildhibaanka ma ahayn marka uu tartamayo iyo marka uu xilka hayo laakiin inuu u doono oo hay-adihii dowladda marba intii awoodoodu tahay isagoo eegaya inuu arrintaa iyada ah runtii ka shaqeeya bay ahayd filashada dadka laftigeeduna waxaa laga yaabaa inaanay iyaga laftigooda aqoon badan aan loo lahayn mandateska iyo awoodaha hay-adaha dowladdu ay leeyihiin marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu ku wadi doono si xikmadaysan oo degan hay-adaha dowladduna ay ku wada shaqayn doonaan qaab isdhammaystir iyo xisaabtan aan wax cunfi ah iyo wax xafiiltana iyo wax colaadii midna uusan ku jirin barnaamijyada hadda laga doodayay runtii de anigu waxaan uun ku fadhiyey oday golaha wakiilada ah barnaamijyada marka laga doodayay oo kale golayaasha iyo shaqooyinkoodii iyo caqabadihii hortaagnaa maalan su-aashii ku saabsaneed xildhibaanadu xilliga ay fasaxa yihiin inay halkan magaalada hargeysa ay joogaan oo aanay gobolladii ku noqonin waa sax waa in qorshe laga yeeshaa waxaan hadda xil wareejintii aan la wareegay ka muuqatay inay 6 xafiis ka furan yihiin 6da gobol ee dalka runtii marka la eego budgetka loogu talagalay iyo baahida ka jirta xafiis in lagu maamulaa maaha mid kaafiyeysa oo ku filan ma ahan laakiin waxaan isleeyahay waa barbiro wanaagsan oo u baahan in la kobciyo caqabadaha golaha haysta waxaa ka mid ah waxay goluhu sida shuruucdeena ku qoran dalka ku qoran inuu budgetkiisa isagu samaysto laakiin duruufaha ku gadaaman oo runtii garowshiyahooda leh iyo dhaqaalaheenu inta uu yahay way xadidayaan in uu goluhu u hanqaltaago inuu budgetu isagu samaystay oo sidoo doono u maamulo isagu ansixiyo gaar ah inuu dusha kaga keeno wasaaradda maaliyadda waa ta keenta sida uu sheegay wasiirku in marka laga dalbado gole ama wasaarad inay budget soo samaystaan oo la yimaadaan budget plan-kooda in laga galo gorgortan oo wasiirka la weydiisto maaliyadda inuu waxaana kordhiyo isaguna uu sheego inuusan waxaa qaban karayn tusaale ahaan waxaa imanaysa in loo baahdo marka qaarkood shaqaale loo baahdo in dad expertise loo baahdo oo caawiya hay-adaas in loo baahdo meelaha qaarkood wasaaradaha qaarkood oo kale maamul fidin meelaha qaarkood oo kale loo baahdo maxaan dhahday hawlo kale oo dheeraada oo samaynta shuruucda oo kale laakiin iyadoo baahidii jirto haddana in awoodii dhaqaalena ay saamixi weydo sida ay hadda sucaad sheegaysay waa laga yaabaa in waqtiyada qaarkood iyadoo la helayo source-kii laga heli lahaa waxaas in la dayaco guud ahaan waa wax dhici kara runtii laakiin waxaan isleeyahay waxaa laga yaabaa inaanay walakacuun ahayne uun garasho keento oo qof dee baahan waxaa la yidhahdaa Soomaalidu waxay tidhahdaa nina korkiisa biyo kama dhowro marka waxaynu u baahannahay inuu qofku maaragtay arrintaa iyada ah dee ka ilaaliyo waxaan ma inaanay suuragal ahayn waxaanu rajo ka qabnaa insha allahu tacaala inaanu xoojino awoodda shaqo ee golaha haddii ilaahay raalli ka noqdo inaanu ku dadaalo wixii xeerar ah ee qabyo ah ee hadda golaha hor yaalla inaanu dhammaystirno haddii ilaahay raalli ka noqdo wixii u baahan in dib loogu noqdo dib loo eego in iyagana aanu maaragtay dib u eegno wixii curin u baahan ee golaha ay u baahantahay inay curiyaan inta badan xeerarku xukuumadda ay ka yimaadaan
boqolkiiba waxaa la yidhahdaa 60 ilaa 75 waxaa soo curisa xukuumadda waxa ka dhashay golaha dhexdiisa ay ka curiyaan golaha dhexdiisa ka curtaana waa ilaa iyo boqolkiiba 15 20 ugu badnaan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wixii xeerar ah ee curun u baahan in la curiyo wixii ay awooddu saamixi weydana ciddii wax kala qaban karta golaha hadday u baahan tahay aqoon waxaan maanta halkan ku invite garaynaya aqoon-yahanka iyo xeeldheerayaasha halkan fadhiya cid kastoo golaha wax kusoo biirinaysa inay u furan tahay oo albaabka golahu u furan yahay inuu u furan tahay guddiyada kala duwan sida hadda la sheegayay golahu wuxuu u samaysan yahay guddiyo howlqabad guddiyadaasaa la shaqeeya hay-adaha dowladda ee kala duwan waxaa laga yaabaa roolka hoggaanka sare inuu yahay inuu u sameeyo guidelineskii ay raaci lahaayeen iyo inuu ku ilaaliyo waxqabadkooda way dhici kartaa inaanay jirin oo ay dhacdo bini aadamkuwa naaqus capacity-ga aynu u leenahay howlaha qaarkood inay aada u hooseyso laakiin waxaan filayaa inaanan ka xishoon doonin ama aanan isdiidsiin doonin haddii ay jirto baahidaas ka taagan golaha oo cid daboosha la helaya haddii ilaahay idmo su-aalihii hadda halka la iska weydiinayay ahayd xidhiidhada hay-adaha dowladda ka shaqeeya xukuumadda iyo goluhu colaadda dee uma dhexayso waa laga yaabaa xildhibaanadu sidii uu weydiinayey maxaan idhahdaa golaha wasiirka weydiinayay in ay u bataan inay ka soo baxeen axsaab mucaarada laakiin maalinta ay u dhaartaan danta guud ee qaranka waxa saarani waa inay gutaan haddii ay u arkaan aragti xisbigoodu wadaa inay dalka dan u tahay oo barnaamijkiisa siyaasiga ay ka mid tahay golageyntiisa iyo geesawadkiisa iyo inuu fulo intaba waajib sharciga bay ku noqonaysaa haddii madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay la yimaadaan wax dalka iyo dadka anfacayana waajib sharciga bay ku noqonaysaa inay fuliyaan aanay ka eegin maslaxad xisbi aanay ka eegin maslaxad shakhsi haddii ilaahay waxaan rajaynayaa ka shakhsi ahaan aad baan u dareemayaa sida ay xukuumaddu inta badan uga gubtahayooto marka ay timaado arrimaha qaarkooda golaha runtiina ma anfacayso dhiqi mayso dadkeenna soo doortay xildhibaanada inay awooddooda muujiyaan waxaa muujin awoodeed ugu filan inay xuduudahooda sharciga ilaashadaan awoodahoodana sida ay tahay dhammaantood u isticmaalaan marka laga reebo marar badan baan la isticmaalin awoodaha intaad xaqa u leedahay oo haddii ay keenayaan dhibaato keenayaan ama aanay baahida danta taalla iyo awoodaheennu aanay isbuuxinaynin wax badan buu ka tanaasulaa golahu marka uu maaragtay halka uu fadhiyo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala su-aalihii la iska weydiinayey su-aashii ugu dambeysay la weydiinayay ahayd doorka uu ku yeelanayo golahu wada hadallada somalilan iyo soomaaliya waxaan filayaa golahu rool weyn buu leeyahay waxaan ka mid ahaa 2011 December markii aragtida golaha wasiirada la hor keenay 5 wasiir ee loo saaray in ay barnaamijkaas isaga ah golaha u soo jilciyaan markii golahu ansixiyayna 5 wasiir ee golaha baarlamaanka geeyay golahii dhaqanka oo markaa isagana maadaama arrintu arrin xasaasi ay ahayd waxaanu labadaba address garaynay golihii wakiilada markaa joogay oo labada iyo golihii guurtida oo labada gol ahaa iyo golaha dhaqanka oo iyagana si gaar ah aanu address garaynay si arrintu ay u noqoto arrin la isla wada qaatay oo golayaashii dowladda iyo bulshooyinka reer Soomaaliland baa isla qaateen muddo ka yar 7 cisho bay qaadatay baan filayaa markii golaha wasiirada ay ka soo dhamaatay runtii way rafatay golaha wasiirada November December January February bay ahayd baan filayaa markii aanu golaha 2012 markii aanu golaha horgeynay waxa la isla qaato dabarka ka furay waxay ahayd golaha wakiilada ay ahaayeen marka waa waxyaabo badan oo kale ku gadaaman baa jira iyaguna oo arrinta iyada ku gadaaman
mar walba looga maarmi maayo ama tala ha noqoto ama sharci ha noqoto golaha wakiilada looga maarmi maayo golaha wakiiladu waxay ku khasban yihiin oo dusha ka saaran wixii dan ah waxaan aad u xusuustaa maalintii aanu ka doodaynay golaha wasiiradu ka doodayeen baa dee waa arrin adag bay ahayd raggii wax ka soo jeeday waxaa ka mid ahaa xubno lahaa arrintaasi ma dhici karto in la wada hadlo waxayna u baahan tahay halkaa aynu ku kala xidhannahay inaynu kala xidhanno innagana ilaahay wuxuu inoo qoraya calafkeena aan qaadno iyo bulshada caalamka saynu ula xidhiidhayno qoladaana magacooda inaynu soo qaadno baa dembi ah waxaan xusuusnay nin kolleegayaga ahaa oo labada waxaan filayaa anigii sacad buu markaana dhex fadhiyo xuseen axmed caydiid baa aad dood u jeediyey oo aan ilaa iyo hadda xusuusto meel badan aan ka sheego wuxuu sheegay wadamada aan la aqoonsanayn sida maxaan idhahdaa saxaraha galbeed oo kale iyo wadamada soo qaatay bay ka mid ahayd meelaha ay ka dhacayaan kulamada caalamiga bay broshuur isla hortaagaan yar waxayna ka codsadaan dadka gelaya maxaan ka qayb qaadanaya golaha si qadiyadooda gudaha loo gaarsiiyo haddii laynooba ogol yahay inaynu fagarayaasha caalamka ah gaarsiino qadiyadeena oo inagu aynu hor fadhiisano oo codkeennii aynu cod dheer ku geysano gaarsiino nidhaahno waxaanu nahay dal madax bannaan waxaanuna xaq u leenahay in la aqoonsado waxaanu doonaynaa caalamku inuu u soo jeesto aqbalo waxa aanu ka hadlayno yani waxyaaba runtii doodihii waaweynaa ee muuqday bay ka mid ahayd ee goluhu uu u soo heemay ee ku dhiiraday inay qaataan go'aamada qaarkood marka runtii goluhu qayb buu ka yahay hay'adaha dowladda ee isdhamaystiraya marka ay gaadho go'aana ee ugu dambeyn wadahadal baa la gelayaa shirar baa la isugu imanayaa negotiation baa imanaya meesha lagu soo celinaya loola soo noqonaya waa hay'adaha sharciga hay'adaha sharci dejinta weeye marka rool weyn uu halkaana ku leeyahay golaha wakiiladu insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaanu qaybtayada ka qaadano marka intaa laga gudbo su-aashii ugu dambeysay ee ahayd madaxweynuhu golaha labada gole miyay isdhamaystireen check and balance kuma dhinac quru ka imanaya mise labada dhinacba waxaan isleeyahay labada dhinac buu ka imanaya tusaale ahaan shuruucda ka soo baxda dhammaan goluhu waxay soo noqonayaan ku dambeynayaan madaxweynaha waxaana xaq u leh inuu saxiixo madaxweynaha haddii uu u arko inaanu xeerkaasi applicable ku ahayn ama xubin qodob ka midi wuxuu ku soo celinayaa golaha odhanayaa wax ka bedel iyo kaabis ku sameeya marka waa check and balancegu waxaan isleeyahay both sides waa uu ka jiraa iyadana waxaan runtii anoo uga faa'iidaysanaya shaqadii aan kasoo qabtay iyo khibradayda arrinta ugu badan ee aad ka hadlayseen caqabadaha dowladda hoose haysta baan rabaa inaan contribution yar ku darsado waxa weeye waxaa in badan lagu mashquulaa oo dhib badan ku haya dowladaha hoose inkastoon isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeya inay yaraadaan aynu rajaynayno oo maanta hargeysa isbeddel ka muuqdo waa arrimaha dhulka sidii uu sheegayay wey waa arrimaha dhulku waxa keenayay ee ugu badnaa inuu buuq ka dhasho doodo ka taagnaa awoodaha hay-adaha dowladda oo sidaa uu sheegayay labadaa dowladood ee meesha iska rab socda ee dowladdii hoose iyo dowladdii dhexe oo awoodda ku muransan iyo xeerarkii oo aan sidii ay ahaayeen loo fulinaynin oo xeerarka dhulku awoodana waxay siinayaan dowladda dhexe awoodana waxay siinayaan dowladda hoose waxaana runtii ay ahayd sidaa uu sheegay guddiga naqshada guud ee dalka oo wasaaradda howlaha guud ay madax ka tahay oo wasaaradda caafimaadka ku jirto wasaaradda biyuhu ku jirto wasaaradda beeruhu ku jirto wasaaradda deegaanku ku jirto wasaaradaha noocaas oo kale ah marka ay inay dalabka dowladda hoose u qorato oo u geyso dalab ay ku dalbanayso magaaladu inay fido dabadeedna dhul aan ka badnayn 5 kilomitir ay iyagu markaa ogolaanshaha siiyaan dabadeed 30% soddonka danta guud ee la bixiyo ay qorshayso soo qorshayso wixii noqon lahaa ama maaragtay drainage ha noqoto oo si wajkii xagga ku saabsanaa cusbitaal wixii laga dhisayo MCH wixii laga dhisayo boolis wixii laga dhisayo wixii kubad lagu ciyaarayo oo lagu ciyaarayo wixii marka kale ee soo harayna si siman aan cid gaara loo buuxino blockya la bixinine deegaan laga dhigo residential area inta laga dhigo loogu qaybiyo dadka qofkii dhisan karaya waliba qofkii dhisan karaya maaha sidan hadda aynu isticmaalno qofku intuu deyrto uu ka dhigto barnaamij ganacsi oo muddo dambe ah waxyaabaha runtii dhibaatada ah waxa ka mid ah
ciidamo iskumay taxallujiseen haddii sida aad sheegayseen ay noqon lahaa dhulka ay dowladda hoose ka dhigan lahayd goob dakhli oo ardiyadii dhulka laga qaadi lahaa qofkan ootay intaas oo kilomitir wuu ka carari lahaa maalinta ugu dambaysa markuu gebigiisu cashuur u dhammaado ilaa lacag buu imika ka samaynayaa marka runtii arrinta noocaasa waxaa keenaya waxaan dhahday awoodda lagu dirirayo ama lagu tartamayo iyo isla xisaabtankii oo siduu ahaa isaga laftigiisa oo tusaale ahaan waxaad weydiinayseen xeerarka ka soo baxa golaha wakiilada xukuumadda de in lagu dabagalay ahay laakiin ama hamrasha ha jirto golaha xaggiisa ha ka timaado ama dhega adeeg xagga xukuumadda ka yimaada ha ahaato ma aha in xukuumadda hadda jirtaa dhaliisha leedahay tan ka mid ahaabaa dhaliishaa lahayd oo runtii aan dee joogay oonu arkaynay laakiin waxaad moodaa inay iska noqotay curfi inagu inta badan curfi baynu ku dhaqanaa tusaale ahaan golayaasha wasiirada imanaya waxaa laga yaabaa inay xubnaha golaha wakiilada ee jooga u ololeeyaan nin walba sidii hadda malaa sucaad baan qofkii sheegaya lahayd abti baa jiro adeer baa jiro sodog baa jiro seedi baa jira marka curfigay ka mid noqotay in wasiirka ay imanaya ninka reerkiisa lagu ixtiraamo uu yidhaahdo hadda kiiniba maydaan lama joojinine kanayaan la joojin oo aan loo eegin iminka waxaa qoran kriteeriyinka wasiirka lagu qaadanaya madaxweyne isagaa xaq u leh laakiin goluhu wuxuu xaq u leeyahay haddii aanu qualified ahayn oo qualificationski looga baahnaa sidanin inuu madaxweynaha ku celiyo yidhaahdo kane kaa mari maaye soo bedel laakiin ma dhacdo waynagama dhacdo waxyaabaha dhaca maaha marka runtii waxyaaba badan oo noocaas oo kale ah baa jira insha allah waxaan rajaynayaa de waa dadaalaynaa baqahana laga qaba ee ah caawa in goluhu uu yahay mucaarad xukuumadduna xoogaa ay ka firkanaxsan tahayna meesha waa ka saarayaa waxaan leeyahay waa rag la malayn karana waa naho iminka qolyo aanu aada isu naqaano xukuumaddii 2010kii aanu wada bilowno sacad ka mid yahayna waa joogaan wada shaqaynta ugu badanna qolyaha aanu wada yeelanayno waa ka mid waxaan u malaynayaa golaha haddeer waxaa ragga kaga hadhay sacad iyo khaliil baan u malaynayaa aanu xilligaa wada bilownay labadaa wasiir baa hadda kaga hadhay baan u malaynayaa marka madaxweynaha laftiisa dee waa wada shaqayno isku xisbi baanu hayno jerman buu noo ahaado waa isdhaqaanaa marka xadhiga waa dabcin doonaa horta inta baquhu ba'ayo laakiin dee awoodaha iyagana ka tanaasuli mayno insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad iyo aad baad umahadsantay guddoomiye magaca isir baan dhammaantiin idinku mahadnaqayaa dulqaadka iyo sida wanaagsan hawsha uga qayb qaateen insha allah kulamo dambe waxay salaam calaykum